bismillaahi raxmaani raxiim macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raali geliya. Haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa dhul iib ah walaalayaal ku soo dhowaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan. waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala. walaalayaal maanta waxaa joognaa meesha loo yaqaano cirfiid waxa ay ka mid tahay deegaanada aadka ugu dhow magaalada muqdisho kana tirsan maamul ahaan gobolka banaadir si gaar ah degmada Hilwaa. waxaa idiin soo gudbinaynaa dhul bannaan oo boosas ah, waa 2 boos waxayna ku yaalaan meel istiraatiiji ah. waxay saaran yihiin jid weyn oo jaay ah, jidkaas oo ka baxa laamiga ka yimaada muqdisho ee balcad oo ah laamiga hadda aan saarannahay ama hadda kaamirada aad uga jeedaan. laamigan ayaa kasoo leexanaysaa, waxaa usoo leexanaysaa wadadan jaayga ah. waa meel istiraatiiji ah, laamigan uma dheera. marka soo dhowaada walaalayaal aan guda galo xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran ee ka bogasho wacan. walaalayaal aan ku bilaabo dhulkan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdisho gaar ahaan waxa uga sii yaalaa degmada Hilwaana waxa uga sii yaalaa deegaanka cirfiid. waa marka aad dhaafto suuqa xoolaha iyo darmoole meesha kusoo xigta waxaa mara wadadan laamiga ah ee aada balcad iyo jowhar ilaa dhankaas ee muqdisho ka timaada. waxaa u leexanaysaa wadadan markaad joogto oo xamar ka tagto dhankaaga midig ama bari. marka aadaysa meesha loo yaqaano ama u socotid dhankaas iyo qabuuraha imaanka. dhulkan iibka ah waa 2 boos, jidka jaayga ah ayay saaran yihiin oo wadadaani ka leexda. haddii aan walaalayaal ka hadlo dhanka cabirka oo dhulkaani ku fadhiyo, dhulkaani cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood siday u yaqaanaan. wejiga hore waxay ka noqonayaan 15 ama dhinaca waxay u noqonayaan 15 mitir. dhinaca kalena wuxuu calaa booski u noqonayaa 20 mitir. runtii waa cabir aada u weyn calaa booskiba, oo booskiba 2 qayb inta loo qaybi intaasoo guri laga dhisi karo. marka kusoo dhowaada walaalayaal, waa fursad ka faa'iidaysta. waa meesha deegaanka uu ku socdo oo magaalada ay u fideyso. mustaqbalka dhow waxaa laga yaabaa meesha inay aada u wada camiranto. waddo istiraatiiji ah oo halbowle wadanka u ahna waa ay martaa. jidkan jaayga ayaa kasoo leexanaysaa walaalayaal. haddii aan ka hadlo 2 boos cabirkooda marka la isku daro, dhinacna waxay u noqonayaan 40, dhinaca kalena waxay u noqonayaan 15 mitir. haddii aan ka hadlay jidadkooda, waa boosas 2 jidlayaal ah. 2 boosba waxay saaran yihiin jidka weyn iyo sidoo kale jid kale oo dhinac ah. saas ayuu mid kasta wuxuu ku noqday 2 jid. 20 mitir ay ka haystaan wadada weyn iyo 15 mitir ay ka haystaan wadada yarta ah. boosaska waa kuwaan ama meeshan hadda ay kaamirada ay hayso. haddii aan ka hadlo walaalayaal jihooyinka ay u jeesanayaan, waa waqooyi ujeed iyo bari ujeed. waa jihooyinka noocyada loogu jecel yahay.
soo dhawaada walaalayaal. dhulkan haddii aan ka hadlo dukumiintigiisa, waa dhul dukumiinti fiican leh, dukumiinti nadiif ah oo dhammaystiran, rasiid iyo safarloog wax ka maqanna aysan jirin. nootaayo alla midaad jeceshahay ayaa lagu geenayaa si lagaaga hubiyo insha allahu tacaala, laguguna wareejiyo. walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha lagu rabo dhulkan iibka ah, walaalayaal calaa boos waxaa lagu rabaa 3,500. labada boos waxay isku noqonayaan 7,000 oo doolarka Mareykanka ah, taasoo ah isku dhammaad oo macal dalaal ah iyo heshiis. marka soo dhawaada, runtii waa qiimo aad iyo aad macquul u ah. waa dhul aad raqiis u ah oo maaragtay lacag badan ay ku kori karto. waa raqiis sida haddaba aad qiimaha ka arki kartaan. haddana haddaad u fiiriso jidka uu haysto sida uu weyn yahay, waddada laamiga ah oo aan ka dheereen, laba jidlayaal iyagoo ah, waxaa la dhihi karaa waaba xaraash. marka ka faa'iideysta. shirkadda Dallis mar walba waxay diyaar u tahay inay idiin soo gudbiso dhulalka qiimahooda kala duwan yahay, dhulalka maalgashiga ah, dhulalka deegaanka ah, dhulalka kirada ku fiican, intaba insha Allah halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. haddii aan ka hadlo walaalayaal waxyaabaha ama siyaabaha dhulkaani oo idiin anfici karo, dhulkaani waxa uu idinka anfici karo waa maalgashi. maxaa yeelay waa dhul mustaqbal leh, meel fiican ku yaala, laba jidlo ah, waddo weyn oo jaay ah saaran. marka lacag inay kugu karato aad ay u badan tahay, oo lacagtii aad gelisay lacag ka badan labulaab iyo kasii badan aad ka heshid. marka dhankaas maalgashiga ayuu aad ugu fiican yahay dhulkan. sidoo kale walaalayaal, waa dhul magaaladii ku dhow oo mustaqbalka dhow laga yaabo inuu deegaan noqdo oo ay magaaladii gaarto. walaalayaal, shirkadda Dallis Real Estate haddii aan nahay, waxaa diyaar u nahay inaan dhulkaaga aan ku iibino. haddii aad dhul ku leedahay deegaankan iyo sidoo kale dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, lambarka meesha ku qoran nagala soo xiriir. dhulkaaga waa lagu iibgeynayaa insha Allah. haddii aad dhul u baahan tahay, dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanada hoos yimaada gobolka Banaadir baa lagaaga helayaa, xitaa gobolada dalka qaarkood. soo dhawaada walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaadba. haddii aan mar kale si kooban idinkugu soo celiyo, waxaa iib ah 2 boos, laba jidlayaal ah, jaygan weyn saaran, deegaanka Cirfiid, degmada Hilwaa, magaalada Muqdisho. cabirkooda uu yahay 20x15 calaa booski. dukumiintigooda uu saxan yahay, nadiif yahay, warqadahiisa dhan ay u dhammaystireen oo taayada harta aad kala wareegi karto. qiimaha la gadaya uu yahay 7,000 oo doolarka Mareykanka ah, labada boosbo macal dalaal iyo heshiis. shirkadda Dallis Real Estate haddii aan nahay, waxaa diyaar u nahay inaan dhulkaan idin soo tusino. haddii aad ku qanacdaanne, nootaayo alla midaad jeceshihiin aan idinkaga wareejino insha Allah. walaalayaal, ugu dambeyntii waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkana aad furataan, idinkoo mahadsan, si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allahu tacaala. walaalayaal, waa mahadsantihiin mar kale. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh.